ninkii mahudho kugu dhigaa mahadhaa lagu dhigaa. Sheeko murti fog xambaarsan. Libaax iyo nin kale ayaa beri axdi dhex maray. Axdigaasoo gundhigiisu ahaa midkoodna midka kale inuusan waxba kadib dhigan hadduu uga soo baxdo. Maalintii dambe ayaa libaaxii oo socda ninkii u yimi una sheegay inuu u socday isagoo wax ka doonayay. Ninkii wuu soo dhabeeyey libaaxii isagoo markaasi heshiiskii tixgelinaya. Dabadeedna libaaxii wuxuu u sheegay inuu ugu socday inuu siiyo wiilkiisa yar ee uu dhalay. Awlaadna ninkaasi wax ku abtirsada dunida guudkeeda. Wiilkaas 4 sano jirka ah ee uu libaaxu ka dalbaday ayuu ka lahaa. Maadaama isagu axdi adag la galay, maantana muraadkaasi loogu imaaday. Yaab iyo amakaag ayaa ninkii qabsaday. Ninkii talo ayaa ku caddaatay. Arrintaasina waxay ku noqotay wuxuusan u fadhin weligiis. In khadar ah dabadeed wuxuu bilaabay inuu isku dayo bal inuu furto wiilkiisa. Isagoo marbaano xoolihiisa ka mida uu u soo bandhigayo libaaxa inuu siiyo. Laakiin nasiib daro libaaxii wax kasta oo ninka u hibeeyey waa uu diiday. Wuxuuna libaaxu soo xusuusiyey ninka axdigii ay wada galeen isagoo odhanaya, saaxiib haddii axdigii aynu wada galnay daacad ka ahaa ii soo hibiyey wiilkan ku weydiistay. Hadduuse dhagar ka ahaana ii sheeg. Muddo fakar ah dabadeed waxay talo uga soo idlaatay ninkii inuu siiyo wiilkii, maadaama wuxuu sameeyo garan waayey. Hadduu u diidan laga adag yahay axdigii uu la galayna isagu jabiyey. Aan daro weyn ayay ku noqotay ninkii. Wuxuuna libaaxii siiyey wiilkiisa. Libaaxii lama uusan tagin wiilkii isla aqalkii hortiisii ayuu wiilkii oo ooyayaa. Aabbawdana ku haya marba gacan goostay. Markuu ku hor dhamaystay oo afkana iska masaxay ayuu dhul cadeeyey oo ku yiri, soo bari saaxiib aan sii soconayaaye. Ninkii talo ayaa ku caddaatay. Wuxuu yeelan waa garan waayey. Hadduu dhinaca dhulka dhigo oo seexo isiraahdana wiilkii cabaadkiisa iyo libaaxii oo hiiganaya ayaa hor yimaada. Habeen baa soo jeed. Fikir iyo dhafoor hays ku abuuray kadib ayaa waxa u soo baxday talo isir waad kaga argoosan kartaa libaaxa. Kolkii uu waaga u dilaacay ayuu wadada cagta saaray. Wuxuu baadi goobab wuxuu dul tagay libaaxii oo barqadii keentiisa barqo libaaxaynaya isla markaasna aysan ka qasnayn. Ninkii oo cil darinahayo ayaa ku yiri libaaxii, libaax waa kuu soo socday. Saaxiib soo dhawow. Ma wax daran baa jira ayaa libaaxii ninkii ku yiri. Kolkaasuu ninkii oo geesinimo ka muuqato una soo diyaargaroobay dhib kasta ayaa ku yiri libaaxii, libaax waxaan u socday oo aan rabaa inaan kaala baxo haraggaaga. Libaaxii markii bayaab iyo amakaag ayaa ku dhacay. Talo ayaa ku caddaatay. Wuxuu sameeyan wuu garan waayey. Wuxuuna bilaabay bal inuu saaxiibkiisa hal qanac u helo isagoo leh, libaax kale aan halkan kaaga soo qabto. Naagtayda haragga kala bax iyo erayo kale. Balse ninkii markiisii wuu ka diiday wax kasta u soo jeediyey libaaxa. In door ah kadib, libaaxii u ogolaaday inuu haragga kala baxo ninkii. Haddaba ninkii uma jixinjixine wuxuu ku dhaqaaqay inuu haragga kala baxo. Dabadeedna wuxuu ku yiri, libaaxu nabad allaha ku yeelo oo barqo wanaagsan. Waxaa dhacday in mar kaliya haadkii duulayay ay ku soo degaan libaaxii oogadiisa hilibka noqotay. Wuxuuna bilaabay inuu hadba geed ka hoos galo haadka cirsanaya. Isagoo markaasi cabaadka iyo qaylada ka baxaysa uga sii darnaayeen. Inuu ka baxsan waayo qodaxda kaymaha ka baxaysa. Duqsiga iyo quraanjada kuwaasoo iyana nuqda ka saaray. Isagoo harsan waayey oo duhurkii ordaya. Qoraxda iyo haadkuna ay daba socdaan ayaa dad ka hor yimid. Waxayna ku yiraahdeen, libaax maxaa kugu dhacay oo sidan kuu galay? Isagoo ceel iyo qoomamo iyo qusba ka taagan noloshiisa. Isla markaana ka shalaynaya wixii ku kacay ayuu ugu jawaabay, nin aan mahudho ku dhigay ayaa mahadho igu dhigay. Haddaba nuxurka ka dambaysa oraahdan ayaa noqotay mahmaah Soomaaliyeed oo caan ah, taasoo loo cuskado mararka qaarkood ifafaalooyinka ka dhex dhaca bulshada dhexdeeda.